halka inaan eega magac wali ma weydiinay may aniga gaabana aye kan ma isku reer baatiin waasa waxaan kugu soo dhaweynayaa kadiska siyaane magacaaga madaala la yidhaahdo walaalay su'aal baan ku weydiinayaa sooda su'aashan ku weydiinaya waxay tahay sheekh waa salaad casar masaajid bee tujinaya safka koowaad waa indhalaayin ka labaadna wuu dhagalaayay safka suuraddu qaldayaa saxaa sheekh kolba kii garanayo baa six dadku way indhalaayihiin laakiin quraanka ma moogana marka safka koowaad su'aashan ma qorto igu soo celi bal sheekh waa salaad casar uu tujinaya uu tujinaya safka koowaad waa indhalaaya waa indhalaaya kala ma kulligood ka labaadna wuu dhagalaaya ma kulligood مساجد وده دقلوا وده نلعب مساجد كنا waxaan ku yiri sheekha dad tujinaya salaad casar safka koowaad uu indhalaaya ka labaadna uu dhagalaaya suuraddu qaldayaa sax wallahi anigu horta masaajid indhala iyo dhagala midna ma arag laakiin waxaan u maleynayaa kuwa indhaha la baa kulay sixi saan baan isleeyahay ku dhagala de muxuu garanba waa dhagalaaya waxa ma maqlee waa maasan tahay su'aal kale ku weydiinaya gabadh qurux badan adigoo kala gabadh qurux badan aad wada sheekaysateen gabadhii waxay kugu tiri inaan isguursanaa rabnaa laakiin hal shuruudan kugu xidhayaa halkaa shuruudna waa inaad dhulka soo laalaabtid maxaa sameyn ma dhul baa la laalaabi karaa war miyay waalanta naa waxa maana maqle waa qoon soo socda waxaad ka sheekaynaysidee ma qoon soo socda wuxuu dhihi lahaaba weli maana arag maqal aniga arrintaasi uma dhicinba arrintaas hadday u dhacdana gabadh kale qurux badan oo kale u maraadsan lahayd gabdhu waa barqadharege ma gabdhaha magaaladaba haddaa gabadhaan baan iska joogi ma dhul baan laalaabi karaa